ahaan arrimaha ku saabsan dagaalka lagula jiro kooxaha khawaarijta ah oo aad ogtihiin inuu ahaa dagaal waqti badan soo socday si gaar ah mowduuca ku saabsan la dagaalanka maalgelinta khawaarijta oo ah mowduuc aad iyo aad muhiim u ah oo halkaan aad aragtaan inuu taagan yahay wasiirkii diinta ee awqaaf arrimaha islaamka wasiirkii amniga qaranka iyo xeeraaliyihii guud ee qaranka insha allahu tacaala sida dabcan dadka Soomaaliyeed ay la socdaan dawladda Soomaaliyeed waxa ay ku dhawaad 3 sano ee la soo dhaafay ku jirtay dagaal adag oo ay kula jirtay kooxaha khawaarijta ah kaas oo ka koobnaa tiirar 3 oo kala ahaa dagaalka tooska ah oo lagula jiro khawaarijta in la jebiyo maleeshiyaadkooda oo laga qabto laga saaro dhulka ay haystaan in dhanka fikirka lagala dagaalamo oo fikirkooda la jebiyo iyo in la joojiyo dhaqaalaha baad ah oo ummadda ay ka qaadayaan waqtigaas dheer oo adkaa oo dagaalkaas muxuu ahaa aan ku soo jirnay nafurnimo badan loo sameeyay waxa Ilaahay subxaanahu wa ta'aala suurto geliyay in guulo waaweyn ummadda Soomaaliyeed ay gaaraan muuqaalkii guud ahaan khawaarijtu ay lahayd 2 sano iyo bar ka hor maanta ma ay laha dagaalka xabadda ah oo khawaarijta lagula jiray waa mid socda oo aan maalin joogsan waa la socotaan dagaalada waaweyn ee hadda socda Hirshabeelle ka socda oo aad ogtihiin shalay dagaalkii ugu dambeeyay in khawaarijta dhul aad u tiro badan looga saaray maleeshiyaad iyo horjoogayaal tiradoodu 100 ay ku dhowdahay laga dilay dhul hawda oo maaragta ay ku sugnaayeen la burburiyay oo maaragta muxuu ahaa laga saaray muxuu ahaa ciidanka qaranka qaybihiisa kala duwan iyo dadka deegaanka ee mujaahidiinta ee geesiyaasha ay ku guuleysteen waxa kale oo la socotaan dagaalka ka socda gobolka bari ee Puntland oo ciidanka geesiyaasha ah ee muxuu ahaa Puntland daraawiishta ah iyo shacabka Puntland ay kula jiraan ee khawaarijta halkaas ku sugan oo guulo runtii taariikhi ay gaareen halkaas ay ku laayeen dad cadowa oo ajaaniba oo dalkeena ku soo duulay oo dambiilayaal adduunyada isaga yimid ah meelo kale oo badan oo dalka ka mid ah ilaa cirifka koonfureed ilaa muxuu ahaa bartamaha iyo bariga iyo meel kasta oo dalka ka mid ah sidaas ayuu dagaalkaasi uga socdaa dagaalka xagga fikirka waa la socotaan khawaarijtu ayagoo ku naaxay in ay dadka mareen habaabiyaan oo ay been u sheegaan in lagu guuleystay in loo cadeeyo oo dadka Soomaaliyeed ay maanta waadix u tahay waxa khawaarijta fikirkeedu uu ku salaysan yahay inaanay shaqo ku lahayn shariicada islaamka inaanay shaqo ku lahayn Soomaalinimada inaanay shaqo ku lahayn bini'aadanimada oo fikirkooda halkaas lagu joojiyay sidoo kale aaladihii ay u isticmaali jireen inay dadka been ku mareen habaabiyaan oo ay ugu soo gudbi jireen in la burburiyay oo maantay warbaahin khawaarijtu ay leedahay oo active oo shaqaysahay aanay jirin hadday tahay website hadday tahay radio hadday tahay social media qaybihiisa kala duwan oo lagu guuleystay iyadana si wanaagsan loo burburiyay waxa kale oo ogtihiin dagaalka dhanka dhaqaalaha ee khawaarijta oo markii uu bilaabanayay dagaalkan 2 sano ka hor aad ogeydeen awoodda ay u lahaayeen in ay maamulaan guud ahaan ama inay ku dhex jiraan guud ahaan nidaamka dhaqaalaha ee dalka gudaha iyo dibadda intaba ganacsiga iyo muxuu ahaa bangiyada iyo dadka caadiga noloshooda inay ku dhex jireen dhaqaale ahaan arrintaasna in maanta meesha laga saaray oo shabakadoodii la furfuray oo la baabi'iyay hase ahaatee maantay annagoo og intaasoo horumar in la sameeyey haddana dawlad ahaan waxaa naga go'an aan ku qasbannahay inaan dadka Soomaaliyeed si joogta u wargelino hadba halka meesha ay hawshu ay marayso fariimaha iyo digniinaha ay mudan yihiin aan soo gaarsiino maanta muraadka iyo ujeedadu waxay tahay in dadka Soomaaliyeed looga digo oo loo sheego in weli dawladdu ay hayso xogta ku saabsan inay jiraan dad si dadban iyo si toosa labadaba u maalgeliya khawaarijta dadkaasaan doonaynaa maanta inaan la hadalno inaan fariimo u dirno in loo digo in loo sheego in lala socdo dhaqdhaqaaqyadooda iyo muxuu ahaa hawlaha ku dhex jira in cawaaqib uu ka dhalan karo cawaaqibkaasna uu saameyn karo noloshooda in marka fursad la siiyo mar kale loogu digo oo lagu hadlo waayo ujeedadu insha Allah tacaala waxa ku wareeji doona wasiirada iyo xeeralaaliyaha marka ay dhameystaan wasiiraduna waxaad fursad u leedihiin inaad su'aalo la xiriira dagaalka khawaarijta gaar ahaan mowduucan maalgelinta aad weydiisaan annagoo idin weydiisanayna inaad mowduucaas maanta ku koobnaataan haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka